السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي aad baa idiin salaamaya meel kasteed ka joogtaan dunida daafeeda oo walaashin xamdi star cooking oo maanta idiin wada video cusub. ugu horeyn aad baan idiin salaamaya, waxaan idin leeyahay haddii aad ku cusubtiin channelka kusoo dhawaada gacmo furan, subscribe na saara channelka. maanta waxaan noo sameynayaa malawax iyo kaluun. halkan imika waxay noo yaala daqiiqdan waxay ka kooban tahay 3 koob oo koobka lagu cabo shaaha ah. halkan waxaa igu jira caanihii maxaan ku raadaya aan ugu talagalay inaan ku sameeyo. halkan waxaa igu jira sonkor ka kooban 2 malqacdood maadaama aan malawax waxaan ugu talagalay maanta in lagu cuno kaluun. halkaasna waxaa igu jira 2 malqacdood oo subaga oo aan soo dhalaaliyay, waan ugu dari doonaa insha Allah. halkaasna waxaa ii taala xabad ukun ama beed ah iyo wax yar oo milix aan waxba ahayn ayaan insha Allah ku dari doonaa. isla socod wanaagsan mishiinka ma insha Allah ku sameysanayaa oo markaaba kaaga dhigaya softi. wakaas uu eeyahay isla socod wanaagsan. wakaas waan nagu soo wada dareemka waxaan kusoo shubay sonkortii, subagii iyo beedkii, caanihun baa u hadhay ukun caanina imkaan ku daraya insha Allah. subagu wuxuu sameeyaa caraf udgoon buu sameeyaa malawaxa. marka subag aliyo subaga doontad ku darsan kartaa dad subag xoolaad haysatid, haddaad haysatid butter, haddaad haysatid blue band. muhiimadu waa inaad subagun ku dartid, xataa qofkii rabaa saliid wuu ku darsan karaa, laakiin si subagu caraf yar buu sameynayaa oo saas buu geeri fiican. imika caanahan ugu shubayaa koobka migi baan kusoo cabirtay, haddii ay igu yaraadaan waan kusoo kordhisanayaa insha Allah. waan imikana waan noo soo shiidaya. wakaas qofkii raba xataa makiinada cabitaanka uu ku shiidan karaa. muhiimadu waa inuu malawaxu saa softi u noqdo. wili xogaaba u hadhay waan si wacan soo yara shiidaya. markaan noo soo dhameeyo insha Allah khudradda iyo kaluunka ayaan noo soo diyaarinaya. asxaabtan isku soo laabanay mar kale malawaxeena saasaan nagu soo sameeyay insha Allah. mar dhowaan u saaraya maqlaha dabka. halka waxay nagu jira kaluun aan soo jarjaray, waxa weeyaan waa finger fish kaluunka loo yaqaano ama yumbe bay Soomaalidu u yaqaanaan yumbe cade. marka waan soo jarjaray, xawaashin soo mariyay. waa kan halkan mambar nagu soo shiilay insha Allah. waxaan ku dari doonaa cuntada lagu ooyay. asxaabta sorry wiiga go'ay videoga kale. intaan waan soo shiilay, intaan waan soo shiilay insha Allah waan soo diyaarinaya. markaas aan noo soo saaraya malawaxa. isla socod wanaagsan. markan kaluunka noo soo dhameeyay insha Allah. asxaabta wakaas kaluunkii waan soo wada shiilay, waan soo wada dhameeyay. halkan imika waxaa igu jira saliid yar, kaarootahan iyo basasha, kaarootahan iyo baradhada maan ku shubayaa sorry. ma ku darayo wax biyo ah. waan isku soo huurinayaa oo inta si wacan nagu soo shiilmaya masiga waxaan noo saaraya imika. asxaabta wakaas malawaxeena way noo soo saaray, way noo sameysmayaan. xagga sare uu ka gudutay, xaggii waasana saasuu ka noqday. waan soo wadaya, saasaan kusoo wadaya, waan nagu soo dhameeyaa. baradhadii iyo kaarooga halkan bay weli saaran yihiin. dadka aad baan ugu gaabiyey, wax biyaa kuma darin. sidaasay baradhadu ku huureysaa, ay ku jilcaysaa insha Allah. hadhowna waxaan ku dari doonaa basal iyo kaarootahaas, babrikahaas sorry, barbaroonigaas iyo kamsar iyo toon insha Allah. isla socod wanaagsan. asxaabta taas qaarkeena waxaan noogu soo daray xawaashiyo. maanta hawshu waa qiyaas. waxaan noogu soo daray babrika shiidan ama barbarooniga shiidan ee cas, iyo waxaan noogu soo daray xawaash kaarigaas. markaan waxaan noogu darayaa basasha iyo barbarooniga iyo kamsarta iyo toonta. markaas baan kaluunka kaga darayaa. saasay ku bisishahay wataas, saasay u kala shabaysa marka magacad saa lagu yiraahdo. yar waxaan sugay inta xawaashida dhexda ka galayaan. malawaxeena isaga waan noo soo dhameeyay, halkan baan noogu soo diyaariyay insha Allah taala. waan isla socod wanaagsan. asxaabi wakaas wixiga waan soo daray ilaa kaluunka halkan kaga daray. saas bay markaan waxaan dib ku daray dabadeed liintaas waa liin shiidan oo diyaarsan.
liinta cuntada aad bay macaanaysaa horteeda lagama sheekeyn karo. asxaabta oo taas waa inoo soo diyaariyey kalluunkeeni saasuu inoogu soo baxay quruxda badan leh iyo khudradii markaan isku daray. halkana waxaa inoo yaala malawixii kaas lagama sheekeyn karo siduu quruxda badan yahay. halkan waa ku jira asxaabta waxaan leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan, subscribe saara channelka si aad u noqotaan daawadaha u horeeya markasta u daawado cuntooyinka quruxda badan aan soo gelino. haddii aad ka heshay fiidiyogan uu ka cajabiyay asxaabtaada la sii share garee. yaa wixii fikradana noogu raab commentiga. maasha allah xagga dhadhaminta aniga idiin qaabilsan. saas buu kalluunku u kala go-ayaa macaan awgii. أنا إنه سر دمي معان كيس على جمش كين كرو ما شاء الله تبارك الله.